in baruurta jirkaaga saaran aad ka nadiifiso ama aad ka dejisid waxaad u baahan tahay calal aqali inuu jirkaaga helo protein xaddigiisu gaarayo inta uu miisaankaaga la eg yahay oo gram ah tusaale ahaan haddaad 80 kiilo aad tahay waxaad u baahan tahay maanta 80 gram oo protein ah maalinkii oo dhan in cuntadaada laga heli karo waxaana meesha ka marneen haddii maanta aad u baahan inaad jirka dhisato inaad murqahaaga dhisto waxaad u baahan tahay protein xaddigiisa gaaraya 1 ilaa 2.5 gram oo protein ah intuu miisaankaaga yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu asxaabta soo dhawaada dabcan videogan maanta waxaan uga hadlaynaa aqliyada ka dambaysa in proteinka haddii la isticmaalo kilyaha ay dhibaato u geysanayaan dib u raac dheer markaan sameeyay waxa ii soo baxday halka hadalkan laga soo tabiyay isha ay hadalkan ka soo baxday iyo sidoo kaleete danta laga lahaa maantana waxaan si cilmi ah u baari doonaa insha Allah taala arinka ku saabsan in proteinka kilyaha uu waxyeeleyn karaayo dabcan in fikradda ka dambayso in protein badan hadii la cuno kilyaha ay fariisanayaan waxay dhahan kaliya waxay ku fadhisaa laba arin in proteinkaas aad cunaysid dabcan nitrogen buu soo saaraa nitrogenkaas la dhaho waa asaga wax kilyaha waxyeeleynaya labo dadka qaba xanuunka kilyaha CKD-ga chronic kidney disease-ka oo ayagana cilmi baarisyo hormaray lagula talin jiray inay proteinkooda aad u xadidaan laakiin cilmi baarista casrigan maxay ka leedahay arrinkaas waxaa jirta cilmi baaris ay daabacday Journal of Nutrition Obesity and Exercise oo lagu sameeyay 14,400 dad oo da'weyn iyo da'yarba iskugu jirta kuwa caafimaad qaba aan kilyaha ka xanuunsanaynin iyo kuwa kilyaha ka xanuunsanayana ay iskugu jireen gabagabana waxay heleen dadka CKD-ga qabay ama xanuunkan kilyaha qabay in 320 aysan wax waxyeelo ah uusan u geysanin proteinkii cuntadooda ku dhex jiray sidoo kaleetana reedka dhimashada noloshooda ay hoos u dhacday dabcan dhimashada Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa ku jiraan qof walbana waqtigiisu dhimanaya laakiin qaabka ayaga wax u xisaabiyaan ayaan ka hadlaynaa kubii caafimaadka qabay ee sidoo kale iyagana diet-kooda lagu kordhiyo proteinkana waxaa la helay 50% in caafimaadkooda uu kor u kacay reedka dhimashadoodana uu hoos u dhacay waxayna raaciyeen dadka ugu yaraan 1 gram inta kiilo ay yihiin protein ahaan u isticmaala inay ka cimri dheer yihiin ama ay noloshu kaga dambeeyaan waa sida ayaga u dhigeen dadka 1.8 gram oo protein qaata dadka proteinka yar qaata in dadka proteinka sareeya qaata ay ka cimri dheer yihiin sidoo kale waxay ogaadeen proteinka gaar ahaan ka yimaada dhirta iyo sidoo kale xoolaha ay yihiin protein aad u tayo sareeyo inkastoo ay kusoo gabagabeeyeen in proteinka dhirta laga helo sida digirta oo kaleete ay leedahay fiber dheeraad ah oo keeni karaya in caafimaadkaaga overall ba aad ku xakamayso marka maxaa keena quraafaadkan nagu dhaxbaahay ee dhahaya hadii protein badan aad cunto kilyaha ku fariisanayo dadka oo inta badan isku qalda nitrogenka iyo maadadan la dhaho ammoniyaha waxa laga soo saaraa proteinka dabcan kilyaha markay caafimaad qabaana waxay awood u leeyihiin ammoniyahaas in ay kaadi u bedelaan jirkana laga soo nadiifiyo oo banaanka loo soo saaro runtana waxay tahay in isticmaalka proteinka uusan wax dhibaato ah u geysanaynin gaar ahaan hadalkayga si fiican u dhageyso kilyaha caafimaadka qaba bal la ogaaday kuwii kilyaha ka xanuunsanaya xataa proteinka marka la siiyay in 23% reedka dhimashadooda uu hoos u dhacay uusan ayagu naftirkooda hadii proteinkooda laga warhaayo oo si macquul ah ay u qaataana uusan wax dhibaato ah oo muuqata uusan u geysan kareynin waxa ogaataa hadii proteinkaaga aad ka tagto jirkaagana uusan wax protein ah uusan helin murqaha ku dhamaan doona sidoo kaleete jirkaaga dhan ayaa ducfi ku imaanaya gabagabo iska jooji cabsi gelinta kaaga imaanaysa dhanka proteinka hadii kilyahaga ay caafimaad qabaana cunto caafimaad leh proteinkeeda uu hodan yahay waxay ka caawinaysaa wanaajinta caafimaadkaaga murqahaaga oo ku dhisma hadii aad xanuun kilya qabtidna waxaan kugu la talin lahaa dhakhtarkaaga la tasho si uu asaga kugu sheego khadarka
iyo garaamka protein aad u baahan tahay haddii aadan weli nagu soo biirin ma garan kara waxa aad sugayso subscribe channelka fikirkaagana qaybta commentiga nagu la wadaago walaalka Coach Sabrie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.